جلعنا تباتمية جلق صناير تجوك ديرا قروح بدنا قبط قلبيا أنا بويستيك كبريتي. halkan laguma dhiganayo xaflad aroos dadkan aad wajiyadooda arkaysidna madashan oo kale weligood horay looguma casuumin. ورقادين وبيال حنا جعايل حوني وهبلين ورقادين وبيال حنا جعايل حوني وهبلين كرلا يستيبوكا الذي برارغيو البحر hees batan ay ka kulushahay ee daadiska ah ayaa lagu jeesaya erayada nabarada iyo falaarta dabka xambaarsanba waxay dul hoganaysaa wiil lagu eedayo inuu kaalintiisii gabay. qalanjada xafladda dhiganaysa waa Ubax Axmed Cabdulqaadir oo taariikhda markii ugu horeysay Muqdisho ku qabsanaysa kulan ay ugu magac dartay kamayro wixii ku soo maray. haddaba bal intaan ku dheeraan qaybaha kale ee sheekada maxaa ku kalifay arintan waatan iyadoo inooga waramaysa. waxaan xiriir jecel soo waday muddo 3 sano ah xiriirkaas jecel 3 sano wuxuu ku dhisnaa nolol aad u qurux badan ay ku noolaadaan laba qof oo lamaane ah ama xiriirkooda kalsooni dhameystiran ugu dambeyn Ilaahay wuxuu qadaray in xiriirkaas ka mirdhaliyo ma garanaysaa ilaa heer guur aan isla gaarno ugu dambeyn inaan isguursano ka dambe 9 bilood ayaan marwo ahaa waxa igu kalifay xalfadan kameero wixii ku soo maraa inaan dhigto waxaa jirtay asxaab ka dhisnaa dhanka messengerka ee social media la magac baxay Flower Family. Ubax oo ku magac dheer Mrs Flower jacayl iyo nolol lamaane ayay sida ay sheegtayba 3 sano gardaadinaysay muddo 9 bil ayay waayahaasi soo qaadatay hase ahaatee 9 bilood kadib noloshaasi waa ay burburtay. Mrs Ubax marna kuma fikiraynin in xafladeeda furiinka ay u dhiganayso ay noqon doonto mid dad badani ay ka soo qayb galaan sidoo kalena baraha bulshada aad loogu hadal hayo laakiin taasi markii ay dhacday waxay sheegtay inay dhiiranaan ka qaaday. ma filaynin xalfad sidaan yaani ama magaceeda sidaan yahay inay dhacayso ama ma garanaysaa sidaan dhan intee u weynaato haddana baraha bulshada inta la qaato aad yaani haddana ay ugu faafayso waxaa jiro dad badan oo baraha bulshada ka faa'iideystay oo siyaabo qaldan u isticmaalay qaar siyaabo wanaagsan u isticmaalay soo wax walba waxay ku dhaceen qadarta Alle iyo waqtigii halkii meeshii waqtigii way halka dhigay. Ubax ayaan weydiinay waxa ay kala kulantay haddaba qoyskeeda markii ay xafladeedani kamayro wixii ku soo maray dhigatay waxayna tiri qoyskeyga markay arkeen arintan wax caqabada ayaga xaggooda oo aan kala gulmo jirto laakiin kaliya waxay ugu dhaheen sidaan dhan ma garanaysaa inay waxaan u qarxayaan anaga u maleynaynin haddaan ogaan lahayn ma garanaysaa ma sameyn lahayn xirfad noocan ama magac noocan ma sameyn lahayn soo laakiin qoysku wax caqabado aan kala kulmay ama yani ayaga ataaga ma jirto. waa dhaqan ku cusub dadka Soomaaliyeed intooda badan adiguna waad u bareertay laakiin maxay ka baran karaan gabdhaha Soomaaliyeed oo fikrad ahaan adigu kula tahay ayaan weydiinay. talaabada aan qaaday waxay dumarka ka baran karaan ama qof walba oo ma garanaysaa caqabado soo wajahay waxay ka baran karaan kaliya inay ka qaadaan dhiirigelin ma garanaysaa aan loo jabin wax walbana meeshii shalayta ay joogeen aysan joogeenin wax walbana inay isbedeli karaan inay aaminaan sidoo kaleeto qof walba oo maanta caqabad haysatay ama dhan family ka haysato ama dhan ma garanaysaa shakhsi ka haysato wax walba oo dunidan ku soo maro in laga gudbi karo ana loo baahneen in loo jifto soo waxa gadaalaha hadaa fiirsid wiliga horumar ma gaaraysid. Ubax waxay sheegtay inaysan ka cabsi qabin inay saameyn ku yeelan doonto xafladan mustaqbalkeeda dambe si gaar ah ninka dambe ee ay la haasaawi doonto ama ay u noqon doonto marwada waana tan iyada oo ka jawaabaysa arintaas. maya wax saameyn iguma lahan mana igu yeelo doonto xalfadas markaa dhigto qaar badan albaabka soo gargaraaceen laakiin inay saameyn ugu yeelato
يعني مايا ما laga yaabo alxamdulillah haddana waan haystaa bedel yani aad u wanaagsan aan rajeynayo nolosha inta iga dhiman inaan agtiisa ku dhameysto haddaba gabdhow ma laga yaabaa in aad dhigataan xaflad middan la midkiina